بسم الله تاريخ مركي أهيد سدح طبنكي بشي سدحات لبكم سجال طبن وحي محكمة الدرجة كوبات عندما قلب كسيدة أفريستي دعوة عقابات كيلو هستي هذه سنيال كو عنشور عثمان أبو بكر عمر أسد إن فاطمة آذن عثمان سدح لبعتن جرأة كل شيء شبه الله ده لبو محمد علي بورو آذن عبد حكيم إن حاو عويل مرسل شن لبعتن جرأة كل شيء باي kuwaas oo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah eedeysanayaasha waxa lagu eedeeyay inay fuliyeen falalka soo socda 15 bishii 8 2017 waxay weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen hal qoys waxaana ku geeriyooday marxuum maxamed xasan cabdi cawad 27 bishii 9 2017 isgoyska via Roma ee degmada Xamarweyne waxay mar kale ku weerareen gaari ay saarnaayeen labada marxuum ee kala ah marxuumad Canab Cabdullaahi Xaashi oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed labo marxuum Axmed Jaamac Xirsi weerarkaas oo sababay geerida labada marxuum 9 bishii 11 2018 waxay qayb ka ahaayeen weerarkii lagu qaaday hotel Saxafi weerarkaas oo ay ku geeriyoodeen 32 ruux 4 sidoo kale 22 bishii 12 2018 waxay ahaayeen abaabulayaashii labadii qarax ee ka dhacay tiyaatarka qaranka iyo daljirka dahsoon oo ay ku geeriyoodeen 27 ruux taariikhdu markay ahayd 20 bishii 3 2019 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah labada xukun sane ayaa xukunka maxkamadda racfaan ka qaatay 6 bishii 4 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa mar kale dil toogasho ku xukuntay 4 bishii 5 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 5 bisha 8 2019 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq